dalkay caawima u tii muwaadin codkaaga dhiibo muwaadin codkaaga dhiibo. shacabka Somaliland in badan bay sugayeen in dalka ka dhacdo doorashada madaxtooyada guud ahaanba dalka oo dhan maanta hoosina bishii ay tahay 13 November. shacabka Somaliland waxay u dareereen doorashada madaxtooyada waxay gacantooda ay ku dooran doonaan madaxweynihii shanaad waxaana saaka dhacday doorashadii saddexaad guud ahaanba dalka magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. gudaha saaka ay shacabka ku nool ay u dareereen doorashada madaxtooyada. Cabdiraxmaan Sagal oo ka mid ah guddiga ugu sareysa komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland iyo gudoomiyaha komishanka gobolka Awdal ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen habsami socodka iyo sida uu furmay. ilaaha subxaanahu wa ta'aala inoogu bariyay nabadqab iyo caafimaad qab isla markaana goobtan u horeysay uu ka codeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland magaalada Boorama bartankeeda ayaynu taaganahay. alxamdulillaah si wanaagsan bay noogu furantay wadeenada gobolka iyo degmadaba aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa hawsha ballaaran ee baaxadda leh. allah subhanahu wa ta'ala ilaahay baynu mahadnaqaynaa maanta inagu soo gaarsiin nabadqab maalintii ay wada sugayeen dadweynaha jamhuuriyadda Somaliland dhamaantood si ay u codeeyaan oo ay muujiyaan doonistooda madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka shanta sane soo socota. hawl badan iyo geedi dheer ayaa loo soo maray waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa ilaahay oo noo fududeeyay kadibna xukuumadda runtii aad iyo aad uga shaqaysay sidii halkan loo gaari lahaa hadday aan lahayd dhaqaale ahaan iyo amni ahaan iyo dhinac walba iyo runtii cid allaale cid kale oo gacan ku lahayd soo gaarista goobta. maanta alxamdulilah rabbil caalamiin gobolka Awdal dhammaantii wuxuu noogu furmay nabadgelyo dhammaan degmooyinka waan la wada hadalnay meel walba way ka furantay waxaana wax aad ugu farxaa runtii safafka la yaab kale ee ka bilowday magaalada Boorama oo mararka qaarkood aan arkayna inuu ka bilowday halku dhamaado aan suurtagal ku ahayn in labada isla aragto. maanta waxaan soo gaarnay gabagabadii iyo maalinta codeynta waa guul qarannimo waxaan hambalyeeyaa shacabka Somaliland waxaan hambalyeeyaa xukuumadda suurtagelisay doorashada waxaan hambalyeeyaa dhammaan qaranka ciidamadiisa kala duwan waxaan hambalyeeyaa komishanka qaranka doorashooyinka oo isku duwalka soo sameeyay. Cabdiraxmaan Abdullaahi Ismaaciil Seeli musharax madaxweyne ku-xigeenka xisbigaasi kulmiye ayaa si rasmi ah u codeeyay wuxuuna halkaasi ku wehelinayay saraakiil sare oo ka tirsan xisbigaasi kulmiye. maanta farxadii ah inaan maanta ka codeeyo magaalada gobolka Awdal Boorama waxaan markaa hore halkan hambalyo uga diray dhammaan shacabka reer Somaliland ee muddada dheer u soo heeganaa sidii u kala dooran lahayn musharaxiinta saddex xisbi qaran sida wanaagsan urfiga ay u soo dhamaaday tartankii iyo dareenada ay bixinayeen iyo maartay odayaasha Soomaaliyeed waxa kaloo ka hambalyeeyaa dhammaan ciidamada amniga sida heeganka u ah habeen dhaarba sida u suglaayeen amniga qaranka Somaliland waxa kaloo runtii aad iyo fogaadii hambalyo u dirayaa komishanka qaranka oo hawl geedi dheer u soo maray inayno inay doorashada maanta si wanaagsan oo bila cunfiya oo bila xasarada ay ku codeeyaan nabadgelyada ilaaliyaan sharaftii akhlaaqada ilaaliyaan sida ku soo marnay saaka runtii aad u farxay. shacabka kala duwan ee ku dhaqan magaaladaasi Boorama saaka waxay haayeen kuwa ku waabaristay inay doortaan madaxweynihii shanaad ee dalka waxaana indhaha qabanayay dadka oo safaf dhaadheer ugu jira inay doortaan musharaxa shanta sane ee soo socota dalka hagi doona. codeynayaan kuyuguna u dheer yahay waan wanaagsan yahay. magacayga waa Mukhtaar Gurguurte waxaan ahay muwaadin u dhashay Somaliland waxaan ka codeynayaa goobtan Beestenleyda ka tirsan degmada Boorama si fiican bay doorashadu u socotaa kuyugan ku jirnaa kuyugna si fiican buu inkastoo dheer yahay cadceeduna kulushay laakiin waa saacadeed waa samarina waxaan diyaarinaynaa codkayga si fiican u dhiibano. maxamed suldaan subagle weeyaan inkii aad iyo 100% waan fiicanahay. anigu saaka markay saacadu ahayd 7 iyo barkii ayaan codeeyay codkaygii waan dhiibtay wata afartaydii si qurux badan ayayna u socotaa kuyuga weydinka arkaya wax dhibaatooyin ma jiro doorashaduna si wanaagsan bay noogu dhacaysaa. Maxamed Xasan Shadbeer Somali News magaalada Boorama.